بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo shacabweynaha Somaliland maalinta doorashada 31 May uguna hambaliyeeyo sida dulqaadka ilbaxnimada iyo aragnimada ku jirto ay ugu soo dareereen ugu ololeynayeen in doorasho xor ah oo xalaal ah oo tartan furan uu ku jiro ay ka wada qayb qaataan oo ku aadan doorashada 31 May baarlamaanka ay ugu dareerayaan in ay si xor ah oo xalaal codkooda ugu codeeyaan musharaxa ay isleeyihiin mas'uuliyadu qaadi kara xilku waa dhibaya hadday tahay golaha deegaanka bulshadii waa u adeegaya hadday tahay golaha wakiiladana waajibaadkii sharci dejineed ee saarna waa uu gudanaya waa ilbaxnimo iyo xadaarad in maanta horumarka weyn 20 sanadood ee u dambeeyay ay doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeyntu ka jireen Somaliland ay 1 milyan oo qof ka badan ku dhawaad milyan iyo 100,000 oo qof ay u dareerayaan inay codkooda dhiibtaan si xor ah uga qayb qaataan 246 xildhibaano u tartamayaan saddexda xisbi ka kala sharaxani doorashada golaha wakiilada 522 xildhibaano golayaasha deegaanka ay u ordayaan oo ilaa 767 musharax ay ka qayb qaadan doonaan ku dhawaad 3,000 oo goobood oo cod bixineedna ay ka dhacayso doorashadu 23 degmo oo kamid ah 22 qiyaastii ayna ka dhici doonto waxaan leeyahay nabad ku codeeya isu dulqaata doorashadu waxay wax u tartaan nabadda is ogolaanshaha is aqbalaada iyo qofku dareenkiisa iyo fikirkiisa inuu si xor ah u dhiibto uguna cabiro sanduuqa cod bixinta mas'uulka uu isleeyahay wiilal iyo gabdhaba waa uu xaalad jirta ka saari kara deegaankiisa ku matali galaa dadka cod bixiyayaasha ee uu matalo waa horumar weyn oo laga gaaray dhinaca dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka oo aan anigu ilaa 2001 2017 horraantiisii ka shaqeynayay waayo aragna aan u ahay qaybna ka soo ahaa dariiqa dheer dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka ay Somaliland ku caanamashay walaalaha koonfureed waxaan ugu baaqayaa inay 10 ka bartaan sida xorta oo xalaasha oo qofka muwaadinka codkiisa ugu dhiiban karayo Soomaaliyeed doorashada 2025 ee ku soo aadan Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xaq u yeeshaan inay xildhibaanka ay doonaan doortaan madaxdooda doortaan mas'uuliyiintooda doortaan taladana shacabweynaha Soomaaliyeed dib loogu celiyo waad mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo nabad iyo guul in uu Ilaahay idinku dhameeyo ayaan Ilaahay ka baryayaa idin rajaynayaa isuna dul qaadataan is aqbashaan natiijada ka soo baxdana hadii Ilaahay yiraahdo wiil iyo gabadh kii inantu dhashaba abtaal loo yahay aad aqbashaan inuu yahay mas'uulkii wakiilkii idin matalayay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa mahadsantihiin